السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah taliye shub oo la sheegay inuu gaaray duleedka magaalada Baydhabo isagoo heegan geliyay ciidamadii Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo maxaa ka soconaya hadda duleedka magaalada Baydhabo xaalku waa sidee Cabdicasiis ciidankiisii iyo waliba saraakiishiisii oo heegan sare gashay maxay tahay sababta xilligaas maxaa ku soo beegay inay u diyaar garoobaan dagaal culus oo ay ku qaadaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee la midka ah sida deegaanka sida degmada Waajid iyo sidoo kale waliba qasax dheere oo iyadana la sheegayo in xalayto ay duulaan culus ay ku qaadeen qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku dul istaagaynaa barnaamijkeena xulashada wararka waxaa si toos ah qadka telefoonka ugu jira Cabdi Jamaal oo la socday wararkii ugu dambeeyay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya عبد الجمال سودو maxaan ka ognahay xaaladda koonfur galbeed iyo waliba taliye shub oo la yiri waxa uu joogaa duleedka magaalada Baydhabo axmed aad baad u mahadsantahay maalin wanaagsan adiga iyo daawadayaashaada taliye shub wixii maalmihii ugu dambeeyaba wuxuu ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo laakiin dib ayuu u laabtay oo mar kale ayuu tegay deegaanada ka tirsan gobolka Gedo halkaasna wuxuu u laabtay abaabul ciidan oo muddooyinka ugu dambeeyaba oo ku howlanaa kaas oo ka waday duleedka magaalada Baydhabo ay ka wadeen ciidamada iyo saraakiisha ka amar qaadanayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ilaa hadda wararka ugu dambeeyay deegaanka ka helana waxay noo xaqiijinayaan in ciidamada ugu badnaa taliye shub oo ka keenay gobolka Gedo oo soo gaarsiiyay duleedka magaalada Baydhabo ayna qorshoodu yahay ku dhawaad 1000 askari oo halkaas geeyay iyaga gaadiidkooda inay weerar culus ay ka qaadaan ayna ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo xaaladuna waxay u muuqataa inay saacadda ka dambaysa ay aad uga sii darayso saameynteedana la dareemayo guud ahaan deegaanada waa tahay maxay tahay sababta keentay xilligan in taliye shub uu halkaasi u gaaro iyo qorshaha jira muxuu yahay qorshaha jira wuxuu yahay in la idleeyay qorshihii ay wadeen oo ahayd inay weerar ku qaadaan magaalada Baydhabo oo muddooyinka ugu dambeeyaba kulamadoodu ay soconayeen waxaana xilligan u muuqataa xaaladdu inay gaartay meel adag maanta waxa xilka la wareegay wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isaaq Koosar wuxuuna si cad u sheegay markuu xilka la wareegay inaan la xamili karin waxa hadda ka dambeeya inay khalaas ku sii jiraan bulshada reer Koonfur Galbeed wuxuu si gaar ah baab ugu diray saaxiibadiisa oo sheegay inay ku sugan yihiin duleedka magaalada Baydhabo oo sheegay inuu dhamaaday xilligii jabhadeynta iyo qalqalgelinta ummadda loona baahan yahay in arrintaas wax laga bedelo sidaas daraadeedna qof kasta ku howlan qalqalgelinta amniga Koonfur Galbeed tilaabo laga qaadayo waxaana muuqata xilligan abaabulka ka socda banaanka iyo midka gudaha in si weyn la isaga warhayo midda kale ciidamadii ugu badnaa abid dowladdu sameeyay ciidan ayaa ka sameeyay duleedka magaalada Waajid waxaana ay halkaas ay ku soo bandhigeen awoodooda waa ciidanka birmadka oo waliba taliyooda Sandheero wata waxa loo arkay dowladdu ay muujinayaan in ay ku sugan yihiin Waajid iyo qasax dheere iyo buurha kaba iyo dinsoor oo maalmihii ugu dambeeyay hadaladooda aad ay u badnaayeen taasi suurtagal tahay in weeraro qorshaysan iyo gacanta qaybo kamid ah si ay u dhigi lahaayeen ciidanka Lafta Gareen ay ku howleeyeen waayahay Waajid xalayto waxa ka dhacay dhaqdhaqaaq ciidan oo ay sameeyeen ciidanka Lafta Gareen iyo ciidamo kale marka bal iyada ka waran maxaa Waajid iyo Baydhabo ma isku mid bay noqdeen hadda Waajid waxa ugu badan dhaqdhaqaaqa hadda muuqda wada waxay ahaayeen ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed laakiin waxay isku dayayaan ciidamada Lafta Gareen iyo saraakiishoodu inay halkaasi ay tagaan waxay ka wadeen oo kale abaabul waxay ka dhigan tahay inay isqubiyeen waxay ka dhigan tahay inay heleen fursado waxay ka dhigan tahay maanta ciidamada u tagay inay shaxdii ay ka heleen ay rabaan caawa inay ku howlgalaan waxay ka dhigan tahay in saraakiisha iyo inta wasiirka amniga oo lagu idayo Isaaq Koosar inuu si weyn wax uga garanayo ciidanka uusan hawshiisa bilaabin ay doonayaan inay kaga hortagaan oo ay u weerar ku ekeeyaan magaalada Baydhabo waxa sidoo kale maamulku u muuqdaa
mid aad ugu walaacay go'aanada ay qaadan lahaayeen ciidamada dowladuna waxaad moodaa inaysan amar dhammaystiranba u haysan inay weerar lixaadla ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada laftagreen dagaalku marka uu dhaco oo duleedka la isula baxo isla mar ahaantii waxaad arkaysaa ciidamada oo ka soo laabanaya dhufaysyadooda ku soo noqonaya laba sabab awgood ayaana la sheegay iyagoon aqoon badan u lahayn deegaanada miyiga iyo sidoo kale kala shaki badan oo ka jira saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo si weyn ay uga shakisan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya oo ay aaminsan yihiin inaysan daacad ka ahayn howlgallada ka socda duleedka magaalada Baydhabo iyo xaaladda lagu wajahayo ciidanka laftagreeninta dhinaca iyo waajid dhaqdhaqaaq xooggan ayay ka sameynayaan ciidanka laftagreen ciidamada dowladda federaalkana sidoo kale maxaa iyada waajidka cusub waajid waxaa ka cusub ciidanka birmadka ayaa soo bandhigay dowlatuski ugu adkaa taliya Sandheere ayaa halkaas awoodiisa birmadka ku muujiyay wuxuuna la dareemay inuu magaalada waajid isagu joogo maadaama ay maalmihi ugu dambeeyay jirtay arrin aad u soo taraysay taasoo cabsi badan laga qabay in ciidanka laftagreen iyo maamulkiisu ay halkaasi gaaraan si arrimahaas looga foojignaado ayayna muuqataa inay tallaabo adag qaadayaan ciidanka laftagreen si looga hortago taliya Sandheerena wuxuu bilaabay ismuujin kadib markii la xalliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo Sheekh Aadan Madoobe waxaadna moodaa hadda inuu yahay taliya fakadka isku shaandhaynta wasiirka amniga oo ku bilaabi doono uuna doonayo in tilaabo muuqata oo saameyn leh uu qaado hadda waxaa bilowday ismuujinta dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan taliyaasha waxaana si weyn ay u yahay nin xoogaal ah oo xaaladda isaaq oo aad uga warqabo Sheekh Aadan Madoobe waxaad moodaa hadda inuu galay wasiirkii la howlgeli lahaa laakiin fariimo adag ayaa ka imaanaya deegaanada duleedka magaalada Baydhabo taasoo naftirkooda ay muujinayaan awoodooda iyo xuduudda ay soo taraysay ciidanka laftagreenka amar qaadanaya dadka rayidkuna aad ay uga cafanayaan ciidamada dhexdooda doonaya inay ka dagaalamaan waxay door bidayaan inay banaanka u baxaan oo xaaladooda banaanka ay ku soo kala baxaan ama haddii ay la tahay ciidan laga adkaaday ay arrintoodu noqoto mid banaanka ku dhamaata laakiin xabadda halka koonfur galbeed sidoo uu noqonayo waxaa la arki doonaa maalmaha soo socda laakiin rajo badan ayaa jirta oo inuu wasiirka amniga uu hadda wax bedela ah maadaama uu yahay nin xogogaal oo xaaladda deegaanka ka jirtay si weyn loogu idayo inuu fahamsan yahay sida ay suurtagal ku tahay in amniga looga howlgalo saraakiisha naftirkooda oo maalmahan aad u moodo inay ka duwan yihiin habkii hore ay u howlgelayeen oo u muuqda inay hadda ay doonayaan kadib khilaafkii soo kala dhex galay Sandheere iyo Sheekh Aadan Madoobe inuu hogaamiyuhu u soo jeestay inuu dhaqdhaqaaq sameeyo oo maamulka deegaanka wax laga qabto hadalkaasi wuxuu ka dhigan yahay sida muuqata inay ishubiyaan reer laftagreen kadib markay ogaadeen ciidamada ay heleen xogta ay ka hayaan deegaanka ayay rajo badan ka qabaan in saraakiisha iyo askarta usoo goosanaysa ay kula soo biiraan rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah afhayeenku wuxuu sheegay in la gaaray xilligii loo gudbi lahay runta iyo xaqiiqda deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed dheeshii iyo dhalanteedkiina uu soo dhammaaday loona baahan yahay in arrinta koonfur galbeed si xaqiiqa loo wajo wuxuu sheegay in maalmaha soo socda cid kasta oo issoo dhiibi weysa ee ka tirsan hoggaanka koonfur galbeed iyagu ay ugu tegi doonaan halka ay ku sugan tahay aysan arrintaas ahayn mid ay shaki badan ka qabaan wuxuu sheegay inay diyaargarow galeen magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeedna maalmaha soo socda ay hogaankoodu gacanta ku dhigi doonaan inkastoo si marka loo fiiriyo ay hadal dhalanteeda mararka qaar loo qaadan karo oo in afhayeenka oo ciidankii dowladda oo jooga magaalada Baydhabo iyo kuwa koonfur galbeed oo jooga magaalada Baydhabo oo hadallo noocaas ku hadlo ay u muuqato mid uu uga jawaab celinayo hadalkii ka soo yeeray wasiirka amniga haddana waa wax walba fido waa wax walba in la fisho oo ay suurtagal tahay inay isbedeli karto laakiin fariintaas inta badan waxay ku dhici doontaa saraakiisha iyo ciidamada kuwaasoo la sheegay inay u furan tahay meel lagu soo dhaweynayo oo ah duleedka magaalada Baydhabo wuxuuna sheegay in ayagu kulamadoodii iyo howlihii ay ku jireen maalmihii ugu dambeeyay ay soo afmeereen go'aankoodana uu soo dhammaaday magaalooyin dhowr ah la isku warsan doono ayna gacan ku haynteeda la wareegayaan laakiin arrintaas waxaa feejinaan way ka gelaya horena u galay wasiirka amniga uu moodo inuu si dardar leh oo shaqada u galay isaaq goosaar wuxuuna aad uga shaqaynayaa hadda in amnigu uu noqdo mid guud ahaanba sare loo qaado magaalada Baydhabo xaaladda adiga ku jirta ay ka baxdo isla markaantii waxaa heegan sare la geliyay marka xaaladdaas degdega ay soo baxday oo saraakiishii iyo madaxdiiba ay dalbanayaan
afhayeenkii lafta gareen inuu howlgal ka bilaabay oo wasiirkii amar wuxuu siiyey qaar ka mid ah saraakiisha iyo madaxda ku sugan degmooyinka kale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna u sheegay mid kasta inuu guto waajibka ka saaran sugidda amniga lagana hortago tillaabooyinka layaab kale ee ka imaanaya dhinaca lafta gareen oo hadda ay marayaan heer ayaga hawaysanayaan inay dalbadaan in la soo dhiibo marka axmedow arrintu waxaad moodaa inay gaarto baraka male qolada lafta gareen intii awoodi kareen inay dadaalaan ay dadaaleen waxay marayaan meeshii ugu dambeysay howlgalkooda sidoo kalena shiiladan madoobe isna hawsha wuxuu marsiinaya meeshii ugu dambeysay sidaas daraaddeed waxay noqotay hawshii inaan hab nabadeed lagu dirin ee xabad horte ay noqotay waxaana dhici doonta maalmaha soo socda howlgal wey laakiin ma garanayna anagu cidda arrintaas intaa roonaa doon awood ay ku dhahaan ciidamada ay soo dhiibaan ma u malaynaysaa lafta gareen iyo kooxdiisa inay leeyihiin awood ay ciidamada dowladdeeda isugu soo dhiibayaan ma laha nimanka waa niman duurka jooga waa niman iyagu deegaankoodu iyo dadkoodii ka cararay laakiin de waa laga yaabaa aan ku dhahay inay askar laga yaaba in u wareegto saraakiil u wareegto laakiin dowlad guuraysa ceeldoon ma qaado ceeldoon waa deegaan ka tirsan baydhabo dusheedana isuguma tegayso dowladdu laakiin hadalkaas wuxuu yahay mid u muuqanaya inay jiraan awoodo kale oo u tashanayo saad ogtahay ciidankii awsam Ethiopia ee ku sugan magaalada baydhabo ayaa dib u gurasho bilaabay waxayna sheegeen in ayagu ay markaan qorsheynayaan inay isaga baxaan xarumaha dowladda oo ugu horeysa madaxtooyada marka maxaa ku soo beegay hadalkan iyo hadalka ay soo jeediyeen garabka lafta gareen weli adsoo ku sugan abaabulka xooggan ee gudaha ka soconaya oo la leeyahay Ethiopia ayaa door weyn ku leh xaaladdu jaha aan la fahmayn ayay u socotaa laakiin waxaasoo idil waxaa laga qaadan karaa waxay tahay inay heeganka ugu sarreeyay hadda koonfur galbeed ku jirto wasiirka amniguna uu rabo inuu shaqo adag qabto dhinaca lafta gareen ee uu taliyashuhu hogaaminayana dhankoodu aysan yaraysan oo iyana doonayaan inay tallaabooyin culus qaadaan ugu dambayntii lafta gareen ma ku guulaysan karaa inuu mar kale uu gacanta ku dhigo koonfur galbeed lafta gareen koonfur galbeed sida muuqata waa ku dagaalami karaa laakiin ma filayo inuu suurtagal u tahay inuu isagu gacanta ku dhigo hadda inta ay joogaan ciidamada dowladda haddii ciidanka federaalku ay baxaan oo ciidanka federaalku ay ka tagaan magaalada baydhabo waa laga yaabaa markaas inay reer koonfur galbeed ay iyagu iskood u dagaalamaan oo ay suurtagal noqoto in ay arrintu ay barbardhac imaado ama ciddii markaas gurmad badani ay suurtagal noqoto inay ama dadka deegaanku ay danaynayaan shiiqadan madoobe iyo ninka lagu magacaabo lafta gareen inuu mid uun awoodda qaado laakiin sida muuqata hadda xaalka dadkuna ma cadda iyo dadku waxa ay rabaan awood ahaan haddii la isbarbardhigana ciidanka dowladdii ayaa weli jooga meesha laakiin ciidanka dowladda maalintay ka baxaan baydhabo ayaa loo yaabaa ayna suurtagal tahay inay wax walba isbedeli karaan